السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مسلمين إلهي سبحانه وتعالى أني إذن كبوحا ويدينيا عافماد يدن بداف إن إلهي سبحانه وتعالى ينسيه برنامج كنوا برنامج كي أها نفط هذا حسابي انت عن الحساب إلهي سبحانه وتعالى ذكر النقضة ما أنتو حين كجهل دونا دي إلهي سبحانه وتعالى كرر النقضة صحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام كم ذا أيا النبي يمد عليه الصلاة والسلام laba su'aalood buu weydiiyey oo isku hal su'aala oo aad iyo aad u qiimo badan u heer sarreeya dhumucdooduna aad u weyn tahay wax ku oolna ah qof kasta oo muslina arrintaa ku dhaqmaana wax weyn ay u tarayso walu fiirsa su'aasha uu weydiiyey saxaabigaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi allah waxaad i tustaa ama ii sheegtaa arrin haddii aan sameeyo dadkuna ay jeclaanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay jeclaanayaan bal hamigaa u fiirso bal aragtida dheer u fiirso wuxuu rajaynayaa saxaabigani in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaado dadkuna bini'aadamkuna ay jeclaadaan haddii aad isku hesho in ilaahay ku jeclaado bini'aadamkana ay ku jeclaadaan cizi iyo sharaf dambe oo magaranaysa kuu hadhay ma jirto anigu waan jecelahay idinkuna waxaan rajaynayaa inaad jeceshihiin ilaahay inuu ina wada jeclaado dadkuna ayna jeclaadaan laakiin dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kooban oo magaranaysa haddana arrin weyn xambaarsan aynu u fiirsanno nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu afdal wasalaam haddii aad doonaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaado adduunyada ka tag oo ka zaahid oo macnaheedu ay tahay intii aan ku khusaynin aruurinteeda iyo ku daalisteeda iskaga tag intii ku khusayso keliya ka qaado arrinta labaad ilaahay baa ku jeclaan doone arrinta labaad waxay tahay dadku waxay gacanta ku hayaan oo adduunyadiya iyadana ka dheerow oo ha weydiisanin oo magaranaysaa ha ka qaadanin iyaguna way ku jeclaan doonaane marka macnaha meesha ku jira waxa weeye markaad wax u baahato allah subxaanahu wa tacaala weydiiso ilaahay subxaanahu wa tacaala laba ragcadood tuko baahidaada u bandhigo rasaaq weeye dulquwati lmatiin allah subxaanahu wa tacaala khasaa'intiisu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ma naaqusto ee way ziyaadaa mar walba allahaas khasaa'intiisu ay siyaado ayna marna aynu nusqaamaynin dulquwati lmatiinka rasaaqa ah fataaxa ah qawiga ah allaha subxaanahu wa tacaala baahidaada u bandhiga wey marka labadaa shay haddaad samaysid dadkuna way ku jeclaanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana way ku jeclaanayaan bal hadda u fiirso isku soo wada duuduubo waa adduunyo uun ilaahay wuu ku jeclaanaya haddaad adduunyada intii adigu ku khusayso keliya aad ka qaadato wixii kalena aad iskaga tagto ilaahay baa ku jeclaanaya oo adduunyadii ku saabsan arrinta labaad dadku waxay gacanta ku hayaan oo isla adduunyadiya haddii dadka aadan weydiisan oo aad ka dheeraato way ku jeclaan doonaan akhwaani fillaah wa akhawaati fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa arrintaas ayuu inoo dardaarmay aniga way anfacaysaa idinkana way idin anfacaysaa walaalaha kalena way anfacaysaa sii gaarsiiya ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna wada jeclaado dadkana ilaahay haynoo sakhira inayna jeclaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi